waa oday weyn oo cajuus ah magaciisu waa Xabiiba Faarax dharaariyo habeen hablo yaryar oo dhali karo ayuu kilkisha kaga jira isagoo cawskooda u shaqaynaya. ninkan oo lagu magacaabo Xabiib Faarax waa mid ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. ninkan oo markii hore ka yimid wadamada reer galbeedka ayaa si joogto ah u faafinaya dhaqan lidi ku ah diinteena suuban, waxaana uu baraha bulshada si joogto ah ugu faafinaya muuqaallo anshaxumo ah oo uu ka soo minguuriyay wadamada reer galbeedka. sidoo kale ninkan ayaa la aaminsan yahay inuu faafinayo dhaqan ay gadaal ka taagan yihiin hay'ado shisheeye oo duulaan ku ah diinteena, waxaana uu ninkan wax caadi ah ka dhigtay inuu gudbiyo muuqaallo anshaxumo ah ayadoo uu saacadihii u dambeeyay si weyn ugu faafay baraha bulshada muuqaalkan oo ah Xabiib Faarax iyo gabar qurba joog ah oo lagu magacaabo Laki Wacays. waxaana la arkayay Xabiib Faarax oo gabadhan horay iyo gadaal uga dhigan. waa kan muuqaalka sida weyn u faafay. hadda ogaan lahaydeen qiimaha ilaahay waxaad ogaan karaa qofka UK ugu tagay kaliya fadhiga kala kacaysa gobonimadu waa dunta waa damiirka hoose Laki Xaaji Wacays ilaahay ka daayo. I love you. sidoo kale maamulka Puntland oo uu ninkan ka tirsan yahay iyo laamaha amniga Puntland waxaa waajib ku ah inay ninkan tilaabo ka qaadaan oo ay ka hor istaagaan dhaqankan foosha xun ee uu bulshada ku dhex abuurayo. sidoo kale hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo uu ninkan u yahay la taliye siyaasadeed ayay barmadow ku tahay inuu soo dhaweysto shaqsi dhaqankan leh oo duulaan ku ah diinteena oo uu haddana wax ka qaban waayo. waxaana la eegayaa sida ay uga falceliyaan dhaqankan foosha xun madaxda Puntland iyo laamaha amniga. walow uu ninkan muddo dheer soo waday dhaqankan isagoo shaqo ka dhigtay aysan jirin cid ka hor istaagtay falkan foosha xun ee uu faafinayo, ayuu taas beddelkeeda maamulka Puntland ka helay habmaamuus sare iyo in loo magacaabo la taliye madaxweyne, taas oo keentay inuu sii dhex galo bulshada, waxaana uu sii helay fursad uu ku sii gudbiyo ficiladiisa ka dhanka ah diinteena islaamka, waxaana uu ka dheereeyay xawaarihii uu ku socday. sidoo kale haddii aan laga hortagin dhaqankan wuxuu ceeb iyo fadeexad ku yahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland. sidoo kale culimada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland ayaan ka hadlin falkan, waxaana muuqata inay ka dhuumanayaan, laakiinse intan ka badan kama sii dhuuman karaan, waxaana ay arrintan dhaawac ku tahay dal muslim ah in lagu dhex faafiyo dhaqamadan, weliba xilo loo dhiibo dadkii faafinayay dhaqankan laga soo waariday dalalka shisheeye ee diinla dirirka ah. haddaba daawade sidee u aragtaa falkan lagu dhex faafinayo bulshada Soomaaliyeed? aragtidaada nala wadaag.